sheeko dhamaatay ayaa sheeko ka dhex dhalataa sideedaba xoogaa kadibna xasuustaas dhaawac ayay kuu geysanaysaa dhaawaca ugu xanuunka badan wuxuu yahay dhibaato aad soo martay in aad dib u aragto laxawsiya xanuunkeedana markaas ayuu kuu bilaabanayaa dagaalka hal qof oo kaliya kuma guulaysto aniga darajadan korneynimada ana helay ciidamo badan ayaa dagaalkaas ugu jiray oo naftooda ay ku waayeen dagaalkaas ciidankaasna waddankooda wax badan ayay u soo dagaalameen haddana ayagoo waddankooda u dagaalamayo ayay noloshooda ku waayeen waxayna ahaayeen geesiyaal run ahaantii biladan maanta aan ku guulaystay ma rabo keligeyga inaan qaato waxaan rabaa dadka meeshaas ku baabaa familkooda abaalmarin in la guddoonsiiyo mustaqbalka dartiisa aan wacabno haya caruurey warqadan su-aasha ku qoran waa inaad qaadiin jawaabteeda waa inaad ii keentaan dhaqsada hala qaado hay soo baxaya waa bixina soorta hay soortay hoy sida shimbirta kale ayaa u boobi kara neefna ma qaato su-aasha waxay ka taagan tahay horta aniga ayaan ahayna yaan ismartiyeenin waa mahadsantahay aan xiraalaha weydhibooya ma kasaayi gabadheed marmarsiyada iga daaya okey dhib malaha xirxiraalaha jawaabtiisoo saxa lagaaga baahan yahay habar yar sidaan cadaalad darro waaya inaa wax u sheegto looma baahna qash uma ogol gabadheeda iska jira iga raali noqo waaya زانا
jaafi raashin macaan ayaad karaysaa mahadsanid bishwa naag fiican oo kugu dhacday run ahaantii waan ogahay hadalkan macaan adiga waxaa kaa keenay kabaabka beelle kabaabka duxmaan laa hadal kale ayaad ku hadlahayd kabaabka aan iskuulka kogunu jirnay sidaasoo kale u koodu dhammaa yaa meeshaan soo dhigayne maba loo baahnay inta la soo dhigo hay khuraafaadkii bilowdayaa haa waxaan meeshaan maba loogu talagelin kaale adiga waxaan maxaad u wareejinaysaa meel kastaa la dhigi karaa maxaa kugu dhacay meesha oo yaal meel munaasib ma ahan laakiin inta ayuu ku fiican yahay dadkeena aqoonta leh waxaan ma sameeyaan adiga jaahilaa tahay waxaanaad ka dawareegin bahasha meesha la dhigaba waa meesheedii aniga wax macnaa umaba arkaba meel gooniya in la dhigo sana adiga maxaad samaynaysaa keenaan arkay tusi aabbo qofka ku sawirayaa waay kolay muhiim maahan ee cashadaada cun maxaa kugu dhacay maame wax sidaas u weyn maahan een hadda sheekadeen sii badanaa saas miya kushuwa xafladda kaana arag ayay aheedaan ku dhaa dadka dhanna way wada baashaaleen adiga fikraddaada dhibo maxaad ka dhihi lahayd bal aan ogaadee yaaqay sawirkaad aragta miyaad ka murugsan tahayna anigu waxaan ku dhahay sawiraas dhammaan gub kadibna daada ayaan ku dhahay maxaad u haysatay marka maxaad ugu weysay aniga yaaqay hal sawir ayaan ka tegay inta kaleeta waan gube macno miyuu leeyahay hadda hal sawir iloobay sheekada sawir oo keliya ma taagna ee sheekada waxay taagan tahay sanaa su-aashay i weydiisay fishwa waxaad ila hadlaysaa sida aniga saana inaan u dhiibo sawirkaoo kale maxaa kugu dhacay mideeda kale lagama yaaba nolosheenna hore gabadheeda saanaa in ay wax ka ogaato haa laakiin nolosheen hore ayay wax iga weydiisay waa muhiim horta jawaabteeda in aan siino laakiin ma ogaanaysa nolosha hore kolay gabadhan aniga wax jawaab ah uma hayo su-aashaas adiga la ugu jawaabaya fishwa fishwa hagaag हल्का हल्का सुरूर है आँखों में कुछ फितूर है यारा तेरा साथ चाहिए लम्हा लम्हा जाग के जी ले दे साथ में एक मुकम्मल रात चाहिए ये जो सुरूर वसल है यही चाहतों की फसल है झलक रहा है प्यार से ये दिल भरा भरा जरा 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 करीब आ जरा 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 करीब फसल है यही चाहतों की फसल है
Morning, Sana. Good morning, Papa. gabadha inta diyaarisay dhaqsiga quraacad cun haddii kale xafladda waad ka daahaysaa dhaqsiis diyaar ya haddana sawirkan xaggeed ka keentay Qurux maano, Papa. Ani keen waan ka rarrahatay. Maxaa dhib kuwa sameeya? sawirkan iska dhaaf ee dhaqsi quraacadaada cun سنة gabadhayda kaalay soo kac kaaliba bishwaa soobax ها dhib badna هاري وي هاري سيدي بيه ها gabadhayda adiga aabbaha ma jeclid miyaa hooy waxaad ii sheegtaa aabbaha waxaad ku nacday Mar kasta guriga imaada isaga oo igu qaqaalinaa oo i dilaa duulow. gabadhayda aabbaha howlo badan ayuu haayaa guriga mas-uuliyaddiisa way saaran tahay wuxuu kugu qaylinaya inay wanaagsanaatuu raba mooye inaad qof xun noqoto ma rabiyo gabadhayda xanaaq iska daa aabbaha anaa la hadlaya okay Laakiin hooyo adiga miiga fogaanaysid maa. dabcan gabadhayda kaama fogaana maxaad sidaas u leedahayna hooyo uun kula joogayaa kaale Hooyo qofkaas yaa waayan. gabadhayda nakeen hooyo soo bax Sababna gaajisa kuma haysa hooyo macaan nakeen yaaqee maanta gabadheena sana ayaan la hadlayay intaa sheekaysanina adiga kuu xiistay anigu waa joogaya beemaha guriga waa joogtaa laakiin xaggeedu uma badnid janvi gabadheeda subax walba waan wada quraacanaa habeenkiina waan wada cashaynaa intaas kadib maxaan u sameeya ii sheeg fishwaa tani waa gabadhaada ee shaqadaada maahan janvi hadda sanaa way weynaatay kolley waa yartaa weli mayse weynaan laakiin maalin waxaa dhicisa aan la qadaynin oo la quraacanin ee naag weyn noqoto kolley adee kuu taallaa inaan kuu xiista aniga waan kuu sheegay berito lasoo practice ma laha dhib malaha beritaan raaca miigu hubtaa maxaa dhahay ninkaaga uma kalsoonid miya habeen wanaagsan habeen lamida halo maxay dhahday kaali tool masuur
cawada zaa'da socoto amaleynaa aniga hay dhibin inaan hurdo ayaan rabaa cayaartan ii jooji saacan oo kale lama ciyaaro okay haddana waxaan ku dhihi lahaa haween wanaagsan فشوى 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 كال حالي لهذا مسقوبي سنة فشوى يا قي انت انا كوكو فيلنا تاسكدك مكان فشوى يا قي اسكدك انت انا كوكو فيلن سو كومدين او كابدن وليبا سو استاك مكان يا قي وكو بريا noloshaada hore iyo nolosha hadda ku jirto mid door haddii loo dhihi lahaa teeba dooran lahayd ii sheeg maxay dhahday lacala beri kamaan atiidtu soo laabto aniga may atiid la joogaysaa mise asigaad raaciya kaala maskaxdaada ma fadhidaa adiga aniga su-aashaan ku weydiiyo kaliya iga jawaab waa iska dhig yaaqay soo bax adiita wuxuu ahaa nolosheedii shalay oo horey weliba adigana maanta nolosheedii dambe ayaa tahay waana la socotaa nakeen I love you Janvi I love you too yaa qaybayba nakeen gabadheena iskuulay rabtaa waad ogtahay in la geeyo soo kacbad aniga waaba ilooba ka waran dhib malaha waa caadi hadda ayaan geynaynaa okay haddaan isdiyaarinaa anigaana kaxinaa gabadheeda kabtan atiit raanaa cisbitalka meel walba wuu ka yaqaanaa mararka qaar xataa waxaa dhacaysa asigoo isbitaalka jooga in uu dharka yuniformka gashto oo militariga kabtan atiit wuxuu dhintay sanooyin ka hor weliba anigoo arkaya xabaddu ku dhacday waxaas adiga lee arki mayne wax dhinta ma jiraan adiga waxaa doontad iska dheh laakiin waxaa xaqiiqaya atiit inuu nool yahay adiga haddii aad sidaas aaminsan tahay iska aaminsanaaw balse aniga wakhtiga hayga lumin vishwa waa inaan garab siinaa waayo waa qof annaga naga tirsan waddankiisa asigoo wax u qabanaya ayuu dagaalka ku dhaawacmay garab ayuu nooga baahan yahay adiga dooq ayaad leedahay ha aaminin haddaadan laakiin jaambi sideed ugu dhaadhicinaysaa wanaagsan gabadhayda awoonka salaamaha baryar jaanfi halkan maxaad ka soo doontayne gabadheedaan soo kaxaynaya dhibaato ma laha kaali bal halkan soo fadhiisa carruure aamusa haddii aan mid aan ku su'aalo carruurtaa meeshaan taagan fasalka labaad soo maahanna ii jawaab haa marwo maxaan kugu dhacayna fishmaa ma imaana miyaane maya aniga ayaa celiyey waa la socotaa ninkaas istarees yar haddii uu dareemo cabitaankuu badsanayaa mina subax ayuu wiiska cabaayay xaaladiisana ma fiicneen bahashaan qabso wax walba xunna ayada ayaa kaa xijaabayso
waad la socotaa yaaqi aniga khuraafaadka inaanan aaminsaneyn waad mahadsantaa muhiimaddaa waxay tahay aniga inaan faraxsanahay waanan faraxsanahay dhibaato ma haysata hadda sanaa qaybta dhexe soo gal sanaa qaybtaada akhri gabadhayda geesiyadaheeda akhri hooyo aamusa iga raali noqo macallin fadlan saana qaybtaada ku noqo fishwa aniga gabadha maanan qasbaynin dhibka jirana maba aqaanba aniga waxa uu yahay haddii aad taqaano waxyaalo kale jeceshaa ii sheeg waan ku baryaa canugta dhan si kale waay haye waayahay okay gabadhayda oon la hadlaa bahaa halo haabo halo sanaa gabadheeda tartiib hooy oo akhyaarta meedinka ii waramo iyo fishwaash maxaa iigu sheegi weysane inay akhyaartan imaanaysa iga raali noqdo waxaa cuntaan waxaa cuntaan idinkana ma baahna isdeji adiga fariiso axsaan samee fishwaa maxaa dhacay dhib miyaa jirana fishwa adima u sheegaayo mise anaa u sheegaayo marka hore fariista adigana fariiso okay idinka cabsi ayaaba igelinaysaane fishwa janvi adiid uu soo laabtay adiida soo laabta maxaad ka wadaa adiid wuu nool yahay yaaqay inaa igu ciyaartaan miyaa bilowdeen maxaa idinka qaldan ii sheega fishwa indhihiis ku soo arkay fishwa awoodan kuugu sheego ayaan waayay aniga maba idin aamini karaba idinka arrintan soo horta ima dhihin dagaalka markii lagu jiro waxaa dhacay ahey annaga ayaa niri ninkaas goobta dagaalka ayuu ku dhintay balse markaas meydkiisa ma aanan helin muddo kadibna waa la raaraadiyey waana la waayey sidaas ayaa warbixinta ku soo baxday wax walba ayaan isku daynay uuna la hadli waayey magacaada oo keliya ayuu ku dhawaaqayaa wuxuu leeyahay janvi garab ayaan kaaga baahannahay mame looma baahna ayada garab nina siiso atiid nin dagaalyahanoo khatara ayuu ahaa waxaana rabnaa inaan weydiinna sababta uu ku badbaaday intaanoo sannana meesha uu jiray adaana garab nagu siin kara middeeda kale adiga haddii aad tegtid waxa macquula ninkaas inaan xaaladdiisa ogaano may ma loo baahno waa codsi oo keliya dr masuud adiga janvi iska dhaafa ninkaas anigaa la kulmaayo adiga kaliya wax manoo qaban kartid magaca uu ku dhawaaqaayo waa janvi oo keliya gormaan la kulmaayo beriso waxyaad la kulmaysaa janvi waa ku baryaa sidaasaa samaynin inaan samey waa muhiim waana samaynayaa berri waa mahadsantahay aad iyo aad waa mahadsan tahay janvi
sidee tahayna adiid aniga miyaa aqoonsan kartaa bas intaana ku filan waqti hala siiyo ukaadi adiga taasi macquul maahan xaaskayga hadduu dhaawac soo gaarsiiye ka waran kornela naga daadee fishwaa mamay sidan wax dhaaf يا فشا فشا ترتيب sidee tahay nakeen فشوى dhib badanaa okay dhib malahan gujirka ma soo geli karaa adigoo maadsanta toore jaafi inaad garaacid looma baana hore soo gal kabaab raashinkii xumaa xaaskayga inaan cuno maba loo baahnaba waa ka raysanaa inaa hadda wax ka sheegto looma baahnayaa dumaashaday waa gabar fiican ee hal nooc in la cuno ma laga fiicno in la carab badashtaa roonayseeba abbabaay atiid kabaabka ma jeclano inaad la kulantid miyaa u timid hadda xaaladiisa iga waran soo ma fiicnana aha adiga markaad u timid kadib wuu fiicnaaday raashiinka wuu cunay laakiin hal dhib ayaa jiro korkiisa in la taabto maba ogolabo arrintiisa ma fududo laakiin wuu soo caafimaadayaa si kastaba ha noqotee mar kasta garabkiinaan taaganahay adii baahataan waad i wacan kartaan nabadgelyo inuu caafimaad waa uda taagannahay jaanfi waan kugu faanaa gabar geesiyadana waa tahay dhal ciidan ayaa nahay oolaadaydana ciidan ayaa dhale waad mahadsantahay maxaad ugu haysataa meeqa jar ayaan ku dhaha nolosheeda ka fogow hams waan ogahay aniga adiga in aad jeceshahay mar walba aniga inaad ila joogtid ha isyeyeelin marka kaalay adiga ayaa iska dhaadhiciya waad ogtaa aniga in la qabo aan xasa isiida qabo mar dhow asigaaba bixi raba seewa adiga xuduudu jooga aniga loo baahaya inaad iclaamo saarto inta dhiman hawsha aniga dhamaysa kaal tali
taliya ditoorka ayaa kuu soo dhiiba alaabtan hoo iga guddoon timaha igarka ma ka xiraa waa ku soo laabanaa taliya si fiican ayaad ula hesho run ahaantii mahadsanid korneyla idhiga jifshwa maalinta ayad wixii dhacay ayaan rabaa inaan kaa raaligeliyo raalli ka noqo mame korneyla looma baahna tiraali geliso waayo adiga shaqadaada oo keliya ayaad gudanaysay run ahaantii ninka atid la yidhahdo wuxuu ahaa sargaal khatara ciidamadeennana kuwa hormuudka ayuu ka mid ahaa haddii uu badbaaday arrintan waxay ay saamayn ku yeelan doontaa guutadeenna sharafna waa ay noo tahay saaxiib macaane babaay niyo baashi waa aad fogaysay kaadii soo qabo baashi mame iskaraaf anigaa doonaayo anigaa ku filan hor meeshan waa duur niyo bahallaha kaaga soo bixi kara korneelna mar walba annaga boordarka ayaan aadnaa boordarkana waa duur intan aniga kama cabsanayo anigaa doonaayo taagar mi maqashaa taagar waad igu taasoma meesha wax idina inaysan joogin taagar waa nala soo weerar waxaan kaa rabnaa gurmad inaad noo soo dirto taagar mi maqashaa xabad ayaa nagu socoto sida ugu dhaqsiyaa badan ciidan waa inaad noogu soo dirtaa ها هلا وكم مغلا اوكي عيد انا كو سو دراي ماشي وان هو وميل امانه بنونيجي مسوي شينا يا حب الله عرضي ولا ما عفوا داعي ما في عنتها هنا بنونيجي مسوي للمياه كانت أرض بنونيجي قدام برسعه أرض kabaha kuma goynin adiga ee bahal ayaa ku qaniinay sidee ku dhici kartaa aniga bahal ma iqaniini karo maxaa yeelay golf ayaan ciyaaray meeshana waan joogay sidoo iqaniinaa bahal macquul maahan taas aniga ma yeelin bahal ma iqaniin aniga meeshaan ka nadiifi eena ka duub bantaajo ugu xir mamay aniga waa socon karaa u kaadi ma socon karti sababtoo ah lugahaada caadi ma ahayn kursi u kaan amarkaaga jiro mamay doctor iska dhaaf waan socon karaa aniga garab midisiya
kaale adiga sharciga ma ilowday korneelka maxamed salaam way sii sheeg wax walba waan xasuustaa sidee wax u jiraan isbeddel ayaa kaa muuqda maanta waxaan u baahanahay janvier inaan la hadlo weliba si qaas ah waxyaaba horara inaan kala hadlo labadiina ayaan idin soo laabtay अकेले में तड़पने की वजह भी हमको होना था अकेले में तड़पने की वजह भी हमको होना था मोहब्बत कर waa la kulmaysaa gabadhaada inta soo caafimaadayso kaliya sugay waana kuu keenaya बने तेरे पर नक्शे कदम की तरह सहरा में बने तेरे पर नक्शे कदम की तरह haye tishwaas aniga waan baxaya gabadhayda ayaan iskuulka soo wadaya hay siduu kuu soo gaar dhaawacanna makana isbitaalku geeya ninkayga mama aniga waan fiicanahay hadda daawooyin ayaan isticmaalay waana caafimaad qabaa adiid xaggiis ma ka imaadee muxuu ku dhahay marka anigii saanaa xaaladeena oo keliya ayuu i weydiinaya wuxuunii dhahay gabadheena saanaa runta haddii ay ogaato nolosheeda maxay noqon kartaa कहीं कुछ तुमसे छूटा था कहीं कुछ हमसे टूटा था कहीं कुछ तुमसे छूटा था कहीं कुछ हमसे टूटा था दिलों पे कर्ज थे दोनों दादी हमको होना था gabadheed maxaa kugu dhacay dhiig ayaa kaa socday biyo miyaad u baahan tahay ardaydaa ku dhibta soo maa ma loo baahno inaad ka cabsato hadda kadib waxaad u sheegaysaa ardayda aabbaha ciidan in uu yahay dagaalka xiga soo maa waxaad isku daydaa qofkii dhankaada soo aado afkii inaad ku dhufato waad fahamta soo maa oo waxay dhaheen maxaad la aamusan tahay aniga waxay dhahay dadka shisheeye ha la hadlin laakiin aniga shisheeye kaamiye ee sanaa gabadheeda halkaa maxaa ku istaajiya ahay dhiigaaba kaa socday hooyo iyaa ku dilay xagtan yaraa soo gaarta anigana waxay imalaynaysa ajnabi inaan ka ah sanaa aawo bugaagtaad ku baranaysa sayniska aniga galaaska nagu soo taga laakiin ninkan sawirkiisa
gabadhayda aabbaha saaxiibkiis waaye warka badan jooji ordoo buugaagtaada soo qaado soona dhaqso soco gabadha maxaad been ugu sheegaysaa hadhow ayaan kuu sheegayaa munaasib maa inaan hadda kuu sheego isla hadda arrinka waa inaad ii sheegtaa sana maxaad ugu sheegaysaa abeed inaan ahay sanaa hadda aabbeed fishwaas waaye ma waaladse adiga markay indhaha soo kala qaaddow fishwaas ayay aragtay ma waxaan dhihi lahaa aabbaha kan maaha aabbaha wuu dhinta miyaan dhihi lahaa ii sheeg ilaa annagoo dhan inaad dhimato ayaan u haysannay beentaasoo kaliya miyaad u sheegtay fiishwaa inaad jeclaan soo uma sheegin mar weliba adigaan kaa fikiraaya wakhtiga wuu isbeddelay anna waan isbeddelay ilaa bini'aadana ahay runta sideedaba isma beddesho runta haddiiba ay tahay run gabadheeda nolosheeda baabi'inayso in aan sheegaba muhiima ma arko haddiidi dhegayso noloshayda hore ayaan u wataadna hore u wado ninkii la yidhahda kabtan atiid wuxuu kugu eedeynayaa oberation qaldan inaa u dirtay naftiisana halis aad gelisa adiga ma la socotaa arrintaas iyadaa micnaaga goobta aad u dirtay waxay ahayd goob halisa nafsadiisana baxar aad gelisay inuu meesha ku dhintan aad ugu tala gashay isagoo keliya maahan ciidamo fara badanna meesha waa ay ku baaba'een guutadeenoo dhan ayaad halis gelisay waxaasna adaa ka mas-uula adigii ninkii la nayaab kukaari oo keliya ayaa goobta ka soo badbaaday kukaarina isbitaalka ayaa la geeyey goobta ayuu ku geeriyooday waxaas wax qoran ay ahaayeen midaan wax qoran kuma tilmaami karo muhiimaddeeda inaan ogaado labadiina sidaad ku soo badbaadeen aniga xilligaas dagaal ayaan ku jiray waxaana joogay qaybta dhawarjebinta xabadaan igu socday ciidan kula socda dhabarka inaad ka toogato ma kula wanaagsantaa adayga qofkaa meel cad loo eedanaa kabtan atiid ninkaad eedeynayso waa sargaal ilaa haddana wax caddayna lagama haya sidee wax u dhaceen bal noo faahfaahay aan ogaanay goobta dagaalku ka socda anigoo dhaawac ayaa ka soo badbaaday laakiin si toosa waxay ii togtay fishwa waxba muusan ii reeban taliya waxaas waa been kornele kontarool wax afkaaga soo baxaya igaraan nakhtaliya riboodku waa sidaan hore u qoray kabtan raanane cadowga ayaa xabadeen xabaddaas ayuu ku dhintay intaasoo keliyaan ogaa wax kale ma ogi taliya riboodka aad qortay iyo runta waa ay kala duwan yihiin taliya markaas kadib ninkaa meydkiisa anaga waan waynay xaaskiisii gabadhiisanaane aniga ayay igu soo wareegeen wakhtigaas wixii ka dambeeyeyna labadooda aniga ay la joogeen wakhtigaan la taagan yahayna ayaga diyaar uma ah noloshiisa inay ku soo laabtaan waa ay agteeda ku faraxsan yihiin arrimeyga iyo qaaska ay ciidanka qaladkaad ka gasha ha isku lifaaqin taliya kabtan atiid ilaa iyo hadda waxaad wadda waa eedayn wax caddaynana kaama hayno haddii ay jiraan dad markhaatiya oo fishwaas arrinta markuu kugu samaynayo ogaa waad keeni kartaa waana dhegaysanaynaa tali hadda wuxuu idinla tahay aniga keliga inaan badbaadin may qof ayaa la noolaa aawi qofka aawahaad xagguu joogaan aragne qofkaas ma ogola meeshaan inuu imaado hadduu imaado wuxuu og yahay fishwa in uu dilaa kaali adi dheela noo joogtay yaaq maxaa kugu dhacayinte waxartaa ninkaaga inaad warqad u qortid moo anigaad iga dacwuritaa soo ma ninkaaga cadowga xabadiisa haddii uu ku dhiman waayo intuu imaanaa anigaa dhammaystira yaaqay ciidan fara badanoo xagga joogaan cadowgaa dileen kaaga muxuu u dhiman laayaa ii sheeg aniga anigoo cadow igu yahay xaasid waay aniga marka hore hadduu dhins aniga laami imaanayn hadda waa kan waa kula joogaan tali
tali waxaan rabaa inaan dhiig kaa qaado oo aan baaritaan ku sameeyo hay maxaa jira korontadu waaba tagtabe tali adoo raalliya waa kuu soo laabanayaa hal mar intii u siiso يا أبو حسن يا ولد waxaan u maleynayaa hadda inaad ogolaatay guuldarada sax wax walba fiishwa ayaa ka dambeeya marka hore ciidamada iga barbar dagaalama ayuu dhameeyey kadibna familkeyga ayuu la wareeyey ma jiro qof fursad labaad la siiyo qof walba waxaa la siiyaa hal fursad oo keliya hal wanaag aad samaysa ayaa qaladaadkaaga oo dhan ku sixi kartaa jambi waxay ii sheegtay inay iga walwalaysay wax jecel ah ima aysan sheegin taasna waxay la micno tahay jecel inaysan ii haynin taas waxaaba sii dheer gabadheedu waxay ka qarisay aabbaheed inaan ahay arrinkan maxaad ku tilmaami lahayd hadda inaad wax samaysid looma baahno asaga nafsad ahaantiisa ayaa kuu imaanaya markaas waxaa la rabaa jaamfii wejigiisa dhabta ah inaad tusto xaqiiqadana bannaanka aad keento markaas wax walba way kuu hagaagayaan inta soo hartay soo maaha iska daa anigaa xalinaayo fishwa oo cabitaankan cab kan gacanta aan kaa dhayay bal dhib ma lahan hay sidee wax u jiraan nabarkan ma baraysanaayo weli waa sidiisii daawan waad qaadataay maxaa qaldan hadda adiga wax walba u sheegto soo maha fishwa dhaawacan ha yareysana waa ku baryaa waa dhaawac weyn dhakhtarkan ku geyna iska dhig bal horta marka hore nakeen maba loo baahna aniga inaad iga fikirto ninkaaga hore ayaa kuu jooga asigaa garab u baahan garabsii shalay idinka la idhahdeen nacaawe haddii adii diidana waan iska joogayaa wax macnaa ma lahan laakiin aa idinka idhahdeen ha iloobin
ilaa iyo hadda su-aasheeda ma aadan iiga jawaabin waxaan rabaa inaad ii sheegto noloshaada hore miyaad ku faraxsan tahay mise noloshaada cusub fasho seeqay waxaas muhiim maaha subax wanaagsan halkaa maxaad ku soo doontay sana sana kaale halkaa maxaad qabanaya ii sheeg waa gabadheeda waa nolosheeda su-aashaas adiga ayaa loo baahnaa inaan ku weydiiye meeshaan maxaad ka soo doontay waxaan ku dhahay meeshaan isaga tag maba soco kartid darajadan korneylnimo sideed ku gaartay sheegban sana waxay u imaadda inay ila kulanto iga raali noqo sana sidee tahay gabadheeda quruxda badnayd shokolad ma cunaysaa hooyadaa miyaad rabtaa inaad weydiiso sax iyo qalad ma kala taqaan waxba isku daalina iska daa qabso maanta aabbaha iskuulka ku geynaa taasna farxad ku adiga sanaa ma qaadi kartid inaad qeeliso ma loo baahno marba runta dibadda hadday u soo baxdo waxaa run ah gurigan laad in aan kaaga saari doono soo sax maan gabadheeda mise waa khaldanay sanaa inaad kaxays iska daaya magaceeda haddii aad ku dhawaaqdid waxaa ugu balan ah kow inaan kaa siin doono taasi waan la socdaa waay macaan kaale bal soo deg orod haari gabadhaan iskoolkeeda ii maro labadiinaba i dhagaystoo dhagihiina fur muhiimadda maaha midkaan dooro lahaa in aan idiin sheego ee muhiimadda waxay tahay gabadheeda inaad faraha ka qaadaan haddii aad ka qaadi weysaan labadiinaba bannaankaan idiin saaraya weji ma qora aniga waad ismaqlaysaan haddaba jawaabtiinana haa ha noqoto oo keliya haddiid adigaa ii soo hara qalad ii sax waan kala aqaana aniga ima baraysid ee danta cunugtayda ayaan fiirinayaa hadda wax maa ku haray meeshaan isaga tagayaan ku dhihi lahaa jaanfi arrinta fishwaa ayaa soo kordhay soo maha ahaa fishwaas arrintiisaa soo korortay dhaawacyo waaweyn ayaa ku yaalla u eg nin duur ku soo dagaalamo oo kale sheekadan ma fahmin aniga aniga xataa waa la yaabay calaamooyinka jirkiisa ku yaala waana fahmi waaye waxay yihiin kaale aad maa naga daysid khuraafaadka in waxaa aad naga dawood aniga waxayga maalaayacni ma aha wiilkan askarigoo la sheega oo dagaalka ku dhinta aniga arrimihiisa way i soo gaartay si fiican ayaan ula socdaa adiga ayaa rabaa inaan kaa xijaabo dhibkiisa siduusan kuu soo gaarin balaayaad ba iga ilaalinaysaa miya hoo iga qaba bal biyahan waa biyo aad u barakaysan dad badanoo waxaa jira dagaalada nafsadda si qaabdaran ay ku waayeen kuwo badanoo waxaa jira nafsadooda si xismad daran ay ku waayeen markaan waxaan rabi lahaa dadkaas in loo duceeyo maadaama dunida ay ka fogaadeen ayaga keligoodana ma aha macala familkooda waxaas wax jira maaha oo hadda ciidamada waxaasaan u samaynaynaa miya jaanfi daawadan ayaa fishwa siinaysaa inuu caafimaadaa laga yaabaa alkolkana ka ilaali bilascaanag hana u ogolaan in uu isticmaalo waaya titor waad mahadsantiin is ilaaliya idinkana adigaa mudan miyay xanaaqsan tahay kuma xanaaqsanin haddaba la soco wax walba dartiina inaan u sameeyey waxa keliya darteena aad u samayso waa gabadheena inaad cabsi geliso soo maha waad ku mahadsan tahay inaad cabsi geliso sannaa runta haddii ogaato maxaa ku dhici karo mase qiyaaste xaaladdeeda siday noqon doonto caddeemo bog ayaad ka daba wareegaysaa walaalo iga raali noqo
oo xabadaha maxay ahayn waxaana dhan saana ayaa wadatay iya aniga waan weydiiyey waxaan dhahay waxaan hakee baad ka keentay waxayna iigu jawaabtay aabe ayaa i siiyey fishwaan may waxaas maba samayn kariyo lagama yaabo in uu sameeyo jaafi runta ayaan kaaga hadlaya aniga تلي معنيك مهن ماجر سردار إن حبط كل فته إيه أنا أي إثبت بادناي هذا ما إثبت بادناي يا إثبت بادنايس إن تلي هدي أنكو شيء مية أمينيس هذا أنا جو حقيقي نقطين عيدا كده أنتي إن ما أنتني متكمده
ayaa isoo weeraray waana isbadbaadinaya isagoo ree akhiraad ahaa waryaa nin weyn baa tahay marmarsiya noola in waan kaa qaadan karno aniga marka hore idiin sheegay inaadan i aaminaynin daawooyin halis ayaan siiyey oo waxaa macquul ah daawooyinkaas inay wax u dhimeen maskaxdiisana broblem ay ku fureen haddaad daawooyin saxan siisa ma dhagaha xabad iska gelinaya waa yahay digtoore aniga waan huwa daawooyin saxan ayaan siiyey soo baar haddii aad doontid dhib ma laha sidaa haddii ay tahay digtoor cilmi nafsiga waa in loo diraa ninkan xaaladiisana la ogaadaa waxaan balla yaabanaya taliya ninkan waxaa la rabaa in la weydiiyo horta qolka waxa ay ra'aakhiraadka ka soo dooneen iyo waxay ka qabanayeen mararka qaar waxay ila noqonaysaa atiid waxyaabihii uu sheegaya inay sax yihiin oo uu runta ku dheganaa taliya waxaa atiid arrintan guddi ayaanu dhiibaynaa ayagaana baaritaan ku samaynaya inta ka horaysana vishwa waa inuu joogaa isbitaalka ciidamada militariga waana in loogu yaraa takhaatiirta cilmi nafsiga beri duhurkii wixii ka dambeeya kornel vishwa xilka waan ka xayuubinay yaa waaye yaa joogana sanaa meeqa jeer ayaan ku dhahay adigoo dhalo fiirsanaya casheen ee jikada ku casheey aniga xalqadii ugu dambaysaan fiirsanaya intaa ku cunaa kadib aan ku imaanaa adigoo musalsal fiirsanaa inaa casheenan waa ogahay isoo daba kac soo socon jikada kuugu siiya cashada 10 daqiiqa bisna waayahay aabbaha aawayna qolkiisa ku jira waaya halqadii ugu dambaysa leh waaya fishwa gurigeena qof kale miyaa imaaday ii sheeg waa kula hadlaya maa ii jawaabtidna aawa harii xagguu joogaa ma aqaan aniga war iska dhig dhalada sidaadaba saana adiga ayay ku sugaysaa halkan ayadna qabna ku cabaysaa maxaa kaa qaldan ii sheeg soo inay fadhiga fadhida moogada ku sugayso aniga ma adiga ku sugaysaa aniga soo milyan faraha iga qaad haddana faraha ayaan kaga qaaday sababtoo ah iyadoo keliyaan ka fikiraa haddii aad ka naxayso xaaladdeeda waxaan maxaad ugu ridda boorsadeeda maxaa waaye rasaastaan aad arkayso hila indhaha maleyda sababtaa ugu ridda maxay tahay maxaad ku hadlee kaale adigma waalatay iskoolka ayaa tagtay yaa ku dhiib waxaan markii la dhahayn aabbee ayaa ii dhiibay tiri ii jawaab dee kii xumaayaa ka dambeeya marka hore sharafteedu ku ciyaara haddana wuxuu rabaa gabadheeda inuu ugu diro soo ma anigaa shaqadiisa haddiid nabi ogida oo xoog badanidaa ii sheeg qof kale ma jooga miya haa asigaa ka dambeeya teeda kale adiga sidaan dhan maxaad ugu gobanaysaa haddii aad u baahan tahay orod xaggiisa aadno meeshaan maxaa ku joojiye waad isku dhex yaacda bahashaanna way kaa badatee isdeji ayaan ku dhahay sana sana
kaale aniga dhegeysana soo ma halkan soo istaag waxaan waa maxay ii sheeg xageed keent yaas boorsada ku geli ii sheeg sida orod hooyo xayawaana noqoto waana isbeddeshay naga tag gabadhayda अकेले में तड़पने की वजह फिर हमको न था अकेले में तड़पने की वजह फिर हमको न था मोहब्बत कर रहे थे हम जुदा भी हमको होना था अकेले में तड़पने की वो दिल भी था कि एक दूजे पे दोनों जान छिड़कते थे वो दिल भी था कि एक दूजे पे दोनों जान छिड़कते थे मगर एक दूसरे से भी खफा भी हमको होना था अकेले में तड़पने की वजह फिर हमको होना था
أديت أبوك سلام waxay rab xaaladaada inaan ogaado sidee tahay oo fiicanahay sanaa iiga war haddii been aan iska dhaaf way fiican tahay xaaladeeda أديت إن wixii dhacay haddii aan kaala hadlo waxaan jeclaan lahaa inaad isiiso marka hore jaanis waxaan kaa codsanayaa in aan labadeena xoogaa yar aan kala fogaano si wanaagsan ayaan kuu fahmay haddii aad wax u baahato iisoo sheeg waan kuu soo sheegayaa adiid run miyaa fishwaas dartiis ciidankiinoo dhan in cadowga ay u laayeen su'aal jawaabteeda aad ogtahay aad weydiinaysaa laakiin ma aaminsanid midaan rabaa inaan kuu sheego maxaa waaye ninkaaga inuusan dhiman uu ilaa hadda nool yahay laakiin khayaano waaye laakiin maxaa waaye katiinad waaye ciidamada dagaalka aadan ayaa xirtaan waxaa laga helaa nooca dhiigooda uu yahay iyo magacyadooda iyo warbixintooda laakiin gurigaada agtiisa see looga helay fishwaas ayaa guriga keenay wuxuuna ka soo qaaday geesiyaasha meeshii ay ku dhinteen dhacdooyinkao dhan aniga ayaa soo baaraya wixii soo baxana anaa kula soo wadaagaya mahadsanti toore adigaa mudan dilka inuu asiga ka dambeeya miyay kol tahay hal mid ayaan aaminsanahay midaasoo ah fishwaas marnaba inuu dilgeysanayn si kastuu daciif u yahay nabadee سناء 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 gabadhayda سناء سناء gabadhayda ku aaway gabadhayda سناء xageed سناء gabadheed xagee aadayna ii sheeg yaa ku siiya shokolaatadaanna ii sheeg yaa ku siiyan way nakeen way dadka dhintay oo dhan feelka ay ku qoran yihiin waa ka mahadsanti toore hal daqiiqo oo kaadiye sana ayaan soo fiiriyay kaale adiga feelkan maxaad ka baaraysaa ii sheeg fishwaas ayaa ii sheegay inuu arkayo ciidamadii hore u geeriyooday dhibka daawooyinka inay u keeneen ma laga yaabaa aniga hadalkii si fiicanaa u dhagaystay laakiin maanta waxaan arkay gabadheeda oo qof kale la hadlaysa yuu ahaa aniga ma aqaan qofkay la hadlaysa gabadheeda maxay dhahday shaakal bini aadan muuse lahayn qofkaas annagoo kale maahan macnaha ad kaalmisoo waalatane
fishwaas dhowr jeer ayuu xuduudada ka soo dagaaltamay geesi ayuuna ahaa ilamaha inuu gacantiisa isku dilaayo qof sidaas geesi u ah kaal reer aakhiraadka inaad aamintid maad bilowday horta ma taqaanaa adiid waxa uu dhahay aniga nin ayaa ila badbaaday ninkaasna fishwaas haddii uu arko uu dilayaa sanaa gabadhaydii sanaa 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 albaabkayga fur gabadheedii sanaa fur albaabka sanaa albaabkayga fur maxaad iskugu soo xirtay fur albaabka gabadheedii sanaa sanaa albaabkayga fur maxaa kugu dhac adiga fur albaabka gabadheedii sanaa fur katiinada la helay iyo qofkaas waxba iska qusaya maad leedahay aniga arrintaas waxba kama oge laakiin caddayn kasta katiinadaas ayaan ku ogaan karaa sanaa gabadheydii sanaa gabadheydii sanaa sanaa gabadhayda habar yar maxaa dhacayna ii sheeg janfi adigii gabadhaada anagana waa imaada anaga nala jooga sababna meeshaan inaad ku noolaan kartaa aniga ilama aha dan ayay u eg tahay marka gurigeena imaada adigii habar gabadhaada yar dhagayso gurigan waa gurigayga cabsidaa ka sheekaynaysana weli kumaanan arag nabadaana ku joogaa janfi madax adayga iska dhaaf waxaan kaa rabaa gabadhaada saanaa inaad ka fikirto gurigan inaan ku gurno miyaa xal aragtaana habar yar waayahay adiga daaribta iska joogi kartaa laakiin aniga kuma ogolaanayo gabadheeda aniga ayaa i raacaysaa anaa wadanaayo walwalkan kaa muuqdo faraha badan maxaa waaye hadalkaadan cabsi ayaa ka muuqata see wax u jiraan dhibaato ma jirto itixaamadii ayaa soo dhowaaday marka waxaan jeclaystay saanaa inay gurigayga ii raacdo si aan u saacido fikir fiican ayaad keentay ogow sanaa inay annaga nala joogayso walwal dhanna ma jiraayo sanaa waxaad ogaataa gurigayga in ay taalo jalaato fara badan waa weyweyn tahay laakiin aniga adigaa isla cunayn soo socohe janfi arrintaa waxaan kaa rabaa faalloog inaad la wadaagto iskuma badnaa adiga nafsadaadana si wanaagsan ugu taxadir
waan ku salaamo walaashay jaafi adiga miyaana soo dhawo soo gudub mahadsanid sida warqadda la igu soo diray ayaa buu eg tahay biyo laguma marinaan ku dhahay yaad ka hadlaysaa naayab miyaana naayab weligayba isma arkin siduu ugu aqoonsan karaa oo ii tilmaami karaa laakiin taliya atiid ayaa mar weliba naayib uga sheekay jiray adiga arrimahaaga iyo muuqaalkaaga intaba iga raali noqo waxyaalayaal isug bal fiiri mar weliba nayaab wuxuu jeclaa sidaad adigaa tahay in aan noqdo muuqaalkaaga aan yeesho naayab mar weliba sawraaq kuma soo qori jirinna dagaalka iyo qaabka loo galiyo xeeladiisa marnamo kaaga sheekeeyey ii sheeg maxaa kugu dhaco waa mustayno askariga dilaaga oo askariga dil ma ii sheegeen gabartayda askariga dilaaga askariga dil ma ii sheeg kaas warkiisa ii sheeg waan ku baray isdaji seexo looma joogo askariga dil ma ii sheegeen aba iska da ha ii sheekayse laga yaaba inaan warkeeda wax ka fahmo waan ku baryaa isku day in aad runtii ii sheegto waan ku baryaa saaxiibe ha isku dayn adiga saaxiibta ayaa tahay baana kuma sheegi karo sidaas ay tahan aniga runta kuma dhiira karo waxay tahay inaan kuu sheegaa baa igraali noqo runta ayaad rabtaa soo maahan warqadda waa taasaa aqri runta waxay tahay ka ogow haddii aad leedahay wadno aad u akhriso halo taaga mila socotaa hawa taagir over waad igu taasoma meesha abni inay tahay hawan ka huwa okay ciidamada hadda ayaan kaxeynaa goobtaas ayaan wada aadi doonaa ka baxay هاي دفاع مع سوسن
fiita ayaa kula hadlaya taageer mii maqashaa gurmad ayaan u baahannahay dhexda ayaa nala galay gurmad iyo sacaddana sida u dhaqsiya badan gurmad waa inaan noogu soo dirto xabada ayaa noogu socda بس aniga waan dhaawacmay adiga iska bax halkaan isaga tag aniga ma socon karo waan ku baryaa nafsadaada badbaadso isaadkee waxba kuma gaaraan meeshaan anagoo nabad qabo ayaan ka tegaynaa dadka dhaawacan loo geysa sooma mid ayaan uga arsi doonaa adiga welwelka iska daa anigaa garabkaada taagan isargac fiswa muhiimaddiisu ugu weyn waxay ahayd jaanfiir wuxuu rabay inuu gacanta ku dhigo ninkanne ciidanka keliya ma uusan qayaanin ee saaxiibkiis rumaad xitaa wuu qayaanay maxaad sidaa noogu samaysay ciidankase maxaad u khayantay igraalna atiid sababtoo gabadhaas saxdaaf ayaan jeclay nayaab xilligaas wuu soo dhaawacmay isbitaalka ayaa la keenay inta uusa dhiman ka hor aniga warqaddan ayuu ii dhaafay laakiin taliyaha haddii uu ogaa lahaa sida uu sameeyey si lamida ayaa lagu samayn lahaa ciqaabtiisana waa la marsii lahaa aniga waxaan ka cabsaday haddii aan warqaddan runteeda soo bandhigo in sida lagu sameeyey saaxiibkoo kale laygu samaynayo waan aaminin la'ahay
waxaan arkayay nayaab markuu dhaawacmay fishwaana inuu kor fadhiyey uuna aad u walwalsanaa ka walwalaya ah haa asigaaba raba nayaab in uu dhinto sababtoo adeed dhib in loo geysta nayaaboo keliya ayaa ogaa si fiican ii dhegayso wejigiisa dhabta asigu uu qarsoon yahay ee lama arko waan ku salaamay waan kaa qaade haari wuxuu ii sheegay labadiin meesha inaad ka guri rabtaan ahaa in gabadhayda ayaa fasax loo bilaabay waan la socdaa sababtoo ah gabadha aabbeeda ayaan ahay waxaan kaa rabaa fasaxa aniga inaan la soo qaato fursaddii sii waxaan rabaa gabadheeda waqti qurux badan inaan la soo qaato dabcan aniga xitaa waxaan ku fikiraya caawa inaan noo imaado oo famil dhammaystiran camal aan u wada casheyno ereygan wax badan ayaan sugaa afkaada inaan ka maqlo waan ku imaanayaa nayaab ninaa hore u soo wadaan rabaa raaligelin iyo mahadcelinaan iskugu daro maadaama adiga uu ku badbaadiyey taasi muhiimaha isku dhibin anigaa ku niyadsan okay haddii aad ku adkaysatay waan ku soo weydiinayaa istaag joogba sanado badan waxaa ku hami weynaa familkayga gacantiis inaan ku dhigo sanna iyo jaabiya hadda waa helay adigana waxaad rabtaa inaad i celiso sabab familkayga inaan la noolaada xaquma liimiya dhibka jira iiga sheekay saaxiibow familkayga waqti inaan la qaato xaquma liimiya aniga ma laga yaabo runta in la ogaado taasina waa ballan naayab naayab نايب 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 هالسبين dhegayso baxlo albaabka fiiri qof ayaa gargaraacaya maruu fiidnimo wanaagsan ma adiga sanna ayaan u imaaday sanaa ah jaanfiya casho u diyaarisay maadaama gabadheed ay tahay meeshan inaan ka wado xaq ayaan u leehay iyo ogolaaw antiid anigiyaa qawaaba kula yaabanahay sidaad u soo laabatay jaaniska ayaad iska luminaysaa jaanfiya aad ka daba wareeganaysaa sanaa ayaa raba ayaad i leedahay sanaa way iska hurdoosaa waxba kama haleysno marka waxaan ku dhihi lahaa maad iska danaysatid waa arrin wanaagsan waqtiga ku wacnaa
sanaa gabadhayda ku aabi sanaa familku wuxuu qurux badan yahay si wada jir ah inuu casheeyaan walwalka iska daa isana iskama aana soo wadan editoorka xaaskiisa ayay ogolaatay ma ka qayb noqonayo miyaanay sheeg gabadheeda waa ka qayb noqonaysaa filinaan daawanayna soo maamulka hashada dhammeeno diyaar wax walba waad jeceshahay inaan kuu sameeyo waayo dharka soo xiranaya soo dhawey ma jirto miyaa maxaa dhahay soo dhawow adigoo raalliya adiid waxaan baamin lahaa gurigaada inaad igu yeerto martina caawan kuu ahaado iska daa warkay cabcabitaankan adiid hortayga raalli noqo waxaan aad iyo aad uga xumahay fishwaa intaanoo sano inuu mugdi igu dhexaayo anigana aan dareemi waayo waxaan aad uga xumaa fikradihiis sida uu iga dhaadhiciyey booskaad ku jirta qof kale haddii uu ku jiri lahaa waa uu aamini lahaa ninkaas adigoo keliya kuma qayaanin ciidankiisa asxaabtiisa ayuu qayaanay ciqaabtana wuu mudan yaha iska daa wixii aadso wixii hore waa inaan ka tagnaa sheekadeennan meeshii noo marayso waa inaan ka bilaabnaa waayahay haa mid kale ayaan kaa iloobay sannadihii lasoo dhaafayoo dhan katiinkan quruxda badan ayaan ku wahay waxaan rabay sanad guurida arooskeena inaan ku xir laakiin fursadaas ma aana helin hadda diyaar muutaa ii sheeg bal waa katiin aad iyo aad u qurux badan adiga le ii xir nayaab ma imaanaya miyaana anigaa ugu talagala cashada inuusan ka soo qayb gelin sababtoo ah familkayga kama tirsano waqti kale si khaasaan oo casuulno nin heer adduunya ayaa la wacay nin heer aqlaa lama waco dabagal ayaan kugu sameeyey shalay wax kastoo dhac lagama yaabo runta si loo ogaad igu kalsoonaa
orod yaa tahay adiga gabadhi sana ii kale gabadheed waxaan ahay abbaa maya runta adoo sheegin nooma soo dhowaanaysa sanaa gabadheeda ii kaale waxbaa iga cabsan kaale habisii haddaba hanoo soo dhawaan meeshaada naga joog waan kuu diga haddaba waxaan rabaa gabadheeda inaan laadno maxaa la soo dhex galaysaa isii daawariya gabadheeda gabadheed soo orod hooy yaa joogo walaalayaal garabna siiya albaabka naga fura adeer waan ku baryaa garab isii maxaa idinku dhacay adeer saan ka dhaangalnay horta maxaa idinku dhacay ii sheega bal adeer waan ku baryaa qofkaan daba socda wuxuu raba in annaga waan ku baryaa adeer macaano adoomaad telefoon mii dhiibi karta taliska ciidankaan waxa lahay gudaha soo gala wax walba waa hay gabadheedana socodsii soo gudba gudaha soo gala انت فليسة قبل هاي فليسة برتان إيه فديستا تلفنا درستان إبيع عبتان أنا إدين كيناي واي وادي فهمتين ما هاي واي أنا القفك فريا هاي مضاني قبلين أمس استج هلك دقائق ياي مضاني 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 سنة قبل هذا سنة كواوي سنة قبل هذا قبل سنة قبل هذا سنة قبل هذا سنة قبل عسيس كده سنة إذا قبل سيقول أوه كان سنة إلى هذا الكبريت سنة محبوبة أنا ما تيجي فوق النساء سنة كبريت أمس أنا أقول سنة والله لو أكبر يا كبريت يا كبر يا كامل سنة قبل هيدا ما في عنتين حال دار كورن sheekooyinka qaar ma dhammaystirmaan qabri ayay noqdaan
run ahaantii aniga weligay waxaa jeclaa idinka nolosha inaan idinla qaybsado laakiin taas ma awoodaa فيلم waxaa lagu tarjumay sababtoo binaadan caadi maahi مقدشو waxa waala waqtiga ugu quruxda badnaa sanaha inaan la qaatay